السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا walaalayal channelkeeni wax walba crypto waa walaalkii Maxamed Jaamac. Maanta insha Allah strategy yar oo kooban baynay hayaa taasoo isticmaalayno coin market cap-ka iyo dhowr qodob oo insha Allah naga saacidi doona strategy-gaasi aynu ugu guuleysano. Strategy-gana waxaan u malaynayaa cid walba haday shuruudaheeda ay ku dhaqanto insha Allah inuu ka faa'iidi doono. Kusoo dhawaada intayna bilaabin walaalaya waxaan oran lahaa farinta soo baxday si waan akhrista anigu financial advisor meehi wax walba channelka ka sheegay waxa experience-gayga aan doonayo dadka inaan soo gudbiyo kala aan doonayo ka hadlo maanta waxa weeye ma sha Allah 100 subscriber baan channelka aanu gaadhnay qolka subscriber waxa oran lahaa walaalayaal la khayr hayna siiyo walaalaha cusubna waxa kula talin lahaa like iyo share iyo subscribe channelka noo saaray inkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabaha cusuban channelka ku soo gudbino. Strategy-gani horta wuxuu saabsan yahay correctionada uu suuqu sameeyay ka faa'iideysanna insha Allah taasoo ka eegayno coin market cap-ka todobadii cisho ugu dambeeyay coin-kii hoos loo soo riday sidoo aragtaan ICP oo 14% hoos loo soo diray week hore taasoo insha Allah qaabkan uga faa'iideysanayno coin-ka percentage-da badan soo dhaca ay sheegi doona insha Allah markaynu qaybta chart analysis-ka aanu galno. Strategy-gana waxa lagu dabaqi karaa 100 coin ilaa 300 coin oo ugu wacan suuqa taasoo mar walba aynu ka fakarayno market cap ku jira coinanka tusaalaha hadaynu qaadano ICP imka waxa ku jira $8 billion maadaama hadii hoos loo soo riday coinka inuu dhawaan dib u laaban doono sida inii sheegayna marka hore waxa weeye inaynu ogaano coinkaasi ama percentage range-ka aynu doonayno maynooyimi range-kaasina wuxuu u dhaxeeyaa 20 ilaa 40% inta u dhaxaysa coinankan ka aragno insha Allah watchlist-kana soo dhigalayna naqshadaha kala duwan ee suuqu inoo sameeyo ee reversalka abaynu ka baarayna coinanka kadibna insha Allah waxaynu helaynaa trade qurux badan oo insha Allah faa'iido wacan ka sameeyno sida cunwaanka baad ku aragtaan targetkeenu doonayno inuu ka sameeynana waxa weeye 10% haddaan safxadda labaad aan tago aan tusaalaha inii waadax gareeyo waxaad imanaysaa area-da 7-day percentage-ka waa taabanaysan ilaa aad aragtaan coinkii hoos u dhaceedu u weeka kadibna magaceeda qaadanaysaan waxaad geysanaysaan trading view-giina ama BINANCE ama exchange-ka la tacaamushaan inuku sidaan sheegay mar walbana hamigaaga waxaad u haysaa market cap-ka ku jira amba lacagta guud ee ku jirta coin-ka waxaana wacan had iyo jeer coin-ka uu ku jiro 300 milyan iyo lacag ka badan inaad ku trade garaysid mar walbana waxaad ka ilaalisaa coin-ka soo dhiganaysid watchlist-kaaga inay xalaal yihiin shakhsi ahaan anigu week hore coin aad iyo aad u qarxay ayaan ka safiiday taana insha Allah wayna la share garay iyo laba coin oo insha Allah qaybta chart analysis-ka markan galo aan diyaariyay aan u malaynay insha Allah in reversal ay sameeyaan ay dib u laaban doonaan kadib markan arkay anigu inay shuruudaheena inoo waafaqeen oo percentage-kii aynu doonaynay 20 ilaa 40% in ka badan hoos loo soo riday taano insha Allah aan u malaynay week-gan inay si wacan ay u laabanayaan taana qaybta chart analysis-ka ku arkay qaybta charts-ka ayna u gudbin walaalayaal waxaan doonayaa reversal pattern-kan aan u malayna saddexdaas inay ugu muhiimsan yihiin iyo time frame-yada ugu wacan laga eego ayaan insha Allah inii sheegaya kadibna waxaanu gelaynaa daily time frame-ka iyo H4-ka inakoo daily-ga marka hore ka eegayna daily-ga markaynu ka soo ogaanay in coin-ka hoos loo soo dirayo oo shuruudaheena coin-kaasi inoo waafaqay oo ahaa 20% ilaa 40% kadibna insha Allah waxaanu gelaynaa 4 hour-ka oo naqshadaha uu suuqu sameeyo aynu ka eegayna naqshada ugu horeysa waxa weeye double bottom oo laba taabasho oo siman oo suuqa ay ka sameeysaa taasoo ay xarafka W-da ay u eeg tahay kadibna pattern-kaasi markuu dhamaado marka loo celiyo coin-ka talabaadna waxa weeye invert head and shoulder oo laba garbood iyo madaxii leh asaguna waa reversal pattern hadii jeerna neckline-ka markuu jabsado ayaa la sugaa calaamad baa halkaas oo kale la dhigtaa dhexdeeda markuu jabsadana waa la galaa double bottom-ka iyo inverted head and shoulders labaduba way leeyihiin reversal pattern-ka ugu dambeeyana waxa weeye descending channel oo coin-ka inta meesha sare laga soo diro ayuu kadibna nasasho dheer hoosta ku galaa oo meel had iyo jeer zone amba support area ayuu ka soo laabtaa taana insha Allah si waadixa ay nagu tusi doonaa charts-ka markaynu gudubno bilowga xalqada waxaanu ku sheegnay coin-ka hoosta loo soo celiyo aynu ka faa'iideysanaynaa taasoo tusaalaha coin market cap-ka markaynu sharxayay aynu coin-kan aynu ku soo qaadanay ICP 1 day time frame baynu joognaa coin-ka markaynu eegaynay waxaanu sheegnay inuu 14% hoos soo dhacay laakiin in ka badan 14% la soo diray week-ga kadibna imika uu si wacan dib ugu laabanayo taasoo sidaad ila aragtaan target range-keennii inoogu soo dhacay si qurux badan weliba ugu soo dhacay oo 29% ah arrinta kale aynii sheegayna waxaynu yidhi
walaalayaal markaad coin aad heshaan in badan soo dhacay one day time frame ka taga ereyooyinka support ku ahaan kara soo ogaada oo calaamadihiina dhigta iyo meelaha u malaynaysa in coinkaasi ka soo noqon karo halkan imka ICP waxaynu aragnaa dhaqaaq xoog weyn inuu sameeyay kadibna 30% hoos loo soo celiyay imkana la bushkaraynayo coin koodhan falsafada waynu ku aragnaa dad baa jira ka adeegsada qaabkan imka inugu sharxay oo lacag badan ka sameeya walaalaha cusub iyo walaalaha ICO-da iyo IPO-da ku wareeraya coin cusub eriyanaya maalin walba waxaan kula talin lahaa walaalayaal coin market capkiina gala coinaka weekii hore amba weekana hoos loo soo diray soo xusha oo watchlist ka dhigta kadibna markaad aragtaan inuu reversal patterns amba candle culus oo one day ka samaysma hadad ku aragtaan gala oo kay safiida waxaad kay safiidi kartaan taasan u malaynaya inay 100% kaga faa'iido badan tahay intaad coin cusub aad eegan lahayd oo aad geli lahayd aad riski weyn aad ku qaadan lahayd waliba okay imka ICB maxaan ku aragnaa waxaan ku aragnaa area double bottom inuu soo gaaray daily baan ka soo aragnaa 4 hour kana waxaynu ka eegaynaa pattern 4 hour ka ayaa ugu wacan u baatanada aad ka arki kartaa si wacan pattern ka imka uu 4 hour ku socdo muxuu u eegayaa bayna la tahay pattern kaasi waxa weeye sida nigu sharxay descending channel buu ku socdaa waana reversal pattern descending channel kana wuxuu tagay area markii hore price laga soo celiyay kadibna ma sha Allah candle-ka 4 hour ka si qurux badan looga soo celiyay horena waxaynu sheegnay markaynu intaasoo macluumaad aynu soo helno oo coin-kii aynu soo helno percent-kii la soo celiyay oo aynu soo helno area-yinka laga celin karo coin-ka inagoo 4 hour chart ka eegayna pattern-ka uu suuqaas ku socdo iyo candle stick-ka uu area-yinka kaga soo noqon karo ma sha Allah inagoo inta ogaanay maxaynu haynaa waxaynu coin-ka aanu ka qaban lahayn wax ku dhow adigu 20% taana insha Allah imka waxaan nitusi doonaa coin-kan anigu week hore ka qabtay ilaa 12% coin-kan anigu shakhsi ahaan ka qabsaday 16% AXS taasoo daily-ga markan tagay aan arkay inuu dhaqaaq xooggan sameeyay kadibna imka nasasho uu galay percentage-kii coin-ka la soo celiyana inay ku dhoweed 20% inta aanu ogaaday H4-ka ayaan tagay kadibna H4-ka waxaan ku arkay area-daasi inay area culus ay tahay oo price-ku dhowr jeer ka soo noqday soo ku aragtaan candlestick-yada lugaha dhaadheer leh candlestick-yada confirmation-ka ku siinaya amba aad ka faa'iidi kartid waxaad ka heli kartaan insha Allah casharkeeni beginners-ka ahaa oo qaybta ugu dambaysa aan ku sharxayay candlestick-yada iyo afarta candlestick ee ugu muhiimsan aynu suuqan mar walba aynu ka raadino markaynu buy aynu doonayna insha Allah taana dib bad casharka u raaci kartaan wad ka eegi kartaan candladaas wax kale yihiin okay markan inta aan soo ogaaday oo aan arkay in area-daasi inay soon xoog weyn la ay tahay oo price-ka kolba laga celinayay waxaan ogaa area-dan xitaa inay ku beegan tahay oo ay noqotay double bottom-kii aynu ka sii dhex arkayno in double bottom-ka naqshada descending channel ay ku sii jirtay waliba صراحة anigu late ban trade-kan aan galay oo waxa ahayd meelaha markii marasaydan ka galo oo easily ilaa 7-8% aan ka qaato laakiin xilli dambe ayaan galay waliba ilaahay wuxuu ugu beegay candle-ka inaan ka galo oo all the way up candle-kaas oo dhan aan raaco aan arkay engulfing-ka weyn inuu soo samaynayo aan ka baxay adigu around 16-15% ayaan ku xidhay trade-kii marka walaalayaal waa arrin aad iyo aad u sahlan oo aad trade qurux badan aad ka qaadan kartaan oo faa'iido qurux badan xitaa aad ka samayn kartaan intaad ereen lahaydeen coin qarxay oo cirkaas ku shareeray coinaka retracement soo sameeya amba xooga loo soo celiyo kuwa try-gareyn aad ka faa'iidaan insha Allah isla imika inakoo duubayna waxaynu aragnaa in coinka dib loo celinayo ilaa area-da uu ka soo dhacay la geyn doonaan u malaynayaa waynu arki doonaa insha Allah coinkan BSG waxaynu oran lahaa watchlist-kiina ku darsada coinka oo la soo bushkareeyay wax ku dhow 50% aan u malaynaya insha Allah momentum qurxoon hadduu helo in imaka dib loo celin doono wiilaayo area-da insha Allah socon doono taasoo insha Allah aan u malaynayo ugu yaraan 30% faa'iido aynu keenay